tilmaamaha dadka ku neceb ee jecel markasta inay ku niyad jabiyaan. cadowgaaga koowaad ee aad leedahay maaha qof aad maalin isdisheen ama isku yara xanaaqdeen, laakiin cadowgaagu waa qofka ku liidaa jecelna markasta guuldaradaada kuna farxa. dadkan laga yaabaa inaad noloshaada mar la kulantay amase aad la kulmi doontid wakhti kale. laga yaabaa xitaa inaad maalin walba la kulmi doontid. waxaa laga yaabaa dadkan inaad kula kulantid goobaha waxbarashada, goobta shaqada, maqaayadaha amase xaafadaha. xitaa waxay noqon karaan asxaabtaada qayb ka mida iyo dadka kugu dhow oo ah faamligaaga. markaad la kulmaysid dadkan ma jirto wax calaamado ah oo aad ku aqoonsan kartid si aad uga fogaatid dhibaatadooda iyo xumaantoodaba. waxay jecel yihiin wax walba oo adiga lid kugu ah. guuldaradaadu waa farxadooda iyaga. mar walba waxay dhagahaaga maqashiiyaan ereyo xunxun si ay kuu niyad jabiyaan. waa dad aad iyo aad u dhaleecayn badan. ma xamili karaan hal qalad haddii aad samaysid amase uu gaf kaa dhaco. waxay kula tacaamulayaan sida inaad tahay qof macsuuma. haddaad wax badan oo wanaaga qabato iyaga wax macno ah agtooda kuma lahan. mar kasta way iska indhatirayaan wanaagaaga. waa dad jecel niyad jabinta dadka kale, sida oo kalena inay kaa shaki geliyaan kartidaada iyo awoodahaaga, oo waxay kaa dhigayaan qof daciif ah haba yaraatee aan waxbaba qabsan karaynin. haddaad u fiirsato dadkan waxaad waayi doontaa si aad u sharaxdid nooca yihiin amase waxaad ku tilmaamtid. mar waxaad u malayn cadow, marna dad maseersan, halka sida oo kalena aad u malaynayso dad xaasidiina inay yihiin. waxaa dhici kartaa mararka qaar in qof si fiican noloshiisa isaga wataa, siday u dhaleecaynayaan inuu qofkii si tartiib ah nolosha uga dhaco iyaga dartood. arrinta yaab kale ayaa ah in dadka waxaasoo dhiba samaynaya in ay haddana isku haystaan dad saxsan mar walba oo aan wax dhiba haba yaraatee aan samaynin. haddii ay arkaan qofkii ay cadaadiska shalay ku bilaabeen oo guuldaraysanaya, waxay ku oranayaan waxay ahayd inaad mar hore isdhiibtidba markaagii hore, mad ahayn qof xooggan. haddaba maadaama aynu la kulmi karno dadka noocan ah, maxaa inala gudboon si aynan ugu dhicin dabinadooda amase aynu uga badbaadi karnaa sharkooda. qof kasta oo rabaa inuu hamigaaga kaa burburiyo marnaba ha isku dhiibin si uu ugu farxo guuldaradaada, laakiin gaadh guushaada si aad uga xanaajiso cadowgaaga. ugu horeyn waxaa muhiim ah inaadan qofna ku degdegin ilaa aad ku ogaanaysid shakhsiyadiisa dhabta ah. macnaha inaadan noqonin ruux qofkii uu arkaba horay ka aaminaya iskalana saaxiibaya. in aadan ahaanin qof aamina wax walbo laga sheego shakhsiyadiisa. adigu baro naftaada ka hor intiisan kuu sheegin wax aanad adigu ahayn. dadka cadowga ku ah noloshaada markastana ku liida. waxa wanaagsan inaanad muhiimad badan siinin hadaladooda oo aad ka soo qaadid sidii inaysan cidiba kula hadal. dadka noocaas ah iyo welibana caqabadaha nolosha ma aha inaad isku jabiso, laakiin waa inaad muujisaa awooddaada shakhsiyeed iyo kartida aad leedahay. codaynta muuqaalkan waa anigoo ah Nadra Siciid iyo soo diyaarintii walaalkeen Cabdilaahi Cabdi. daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. fiidiyogan ha ka ilaawin in aad sheer garayso oo aad la wadaagtid saaxiibadaada aad jeceshahay iyo faamligaagaba si ay ugu noqoto dhiirigelin. sidoo kalena like saar. ma tahay shaqadoon? ma doonaysaa inaad beddesho noloshaada? ma doonaysaa inaad hesho dakhli joogto ah? ma doonaysaa inaad noqoto tusaale lagu daydo? haddaad tahay qof han iyo himilo leh, doonayana inuu wakhtigiisa ka faa'iidaysto, isbeddel weynna noloshiisa ku sameeyo, haddaba nagu soo biir oo ka mid noqo xubin ka tirsan shirkadda weyn ee caalamiga AG Nutrition Transforming People. ka samee dhaqaale badan adigoo gurigaaga jooga, sida oo kalena qaado bil kasta mushahar joogto ah. AG Nutrition waa kombani islaamig ah oo laga leeyahay dalka Malaysia, kuna sahlaya in aad hab online ku shaqaysato. haddii aad tahay qof doonaya inuu noloshiisa bedelo, haddaba nagala soo xiriir WhatsApp nambarka shaashada ka muuqda. AG Nutrition! Transforming people. AG Nutrition! Transforming people. AG Nutrition. Welcome to AG Nutrition.
mission and vision.